marka hore waxaan u tacseenayaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo reerkiisa iyo reerka marxuumka uu ka dhashay dhammaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhan dhammaan shacab weynaha Djibouti anigoo ka socda dawladda federaalka Itoobiya waxaanu ku nimid wafti ballaaran oo ka kooban dawladda federaalka iyo dawlad deegaanadka Soomaalida iyo odayaasha iyo ganacsatada deegaanka Soomaalida oo dhan run ahaantii marxuumku Saacad Umar Geelle wuxuu ahaa qof qaali ah taariikh badana ku leh dalka Djibouti iyo adeega dekadaha Djibouti ee Itoobiyana isticmaasho uu yahay dekada ugu weyn ee Itoobiya isticmaasho marka marxuumku anigana saaxiibaan ahayn in badan baa wada shaqeynay marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo dhammaan dawladda Itoobiya waxay tacsi u dirayaan shacabka Djibouti waxaanu leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannadana Allah ka waraabiyo marka haddaan taariikhdiisa yar ka sheekeeyo marxuumku wuxuu ahaa qof hogaaminta iyo adeeg bixinta aad iyo aad xeelad dheer u leh nin degan oo waaya araga run ahaantii isticmaalka dekada Djibouti waa laf dhabarka dhaqaalaha Itoobiya ka mid tahay maalgashi ballaaranna waan ku sameynay labada dhinacba dawladda Djibouti dhinaca dekadaha maalgashi ballaaran bay ku sameysay dawladda Itoobiyana xagga tareenka aan si wada jir wada dhisanay iyo wadooyinka dhammaan in corridorkan Djibouti uu noqdo corridor caalami ah oo adeega shacab weynaha Itoobiya iyo dhaqaalaha xawliga Itoobiya si buuxda ugu adeega marka marxuumku xagga isticmaalista dekadaha iyo in la fududeeyo adeeg bixinta dekada qayb libaax leh mar walba ka qaadan jiray waxa dhacda marmar in import fara badan Itoobiya ee dibadaha ka dalbato oo hal mar isku soo gaaraan dekadaha Djibouti muddo 3 bilood ama 4 bilood taasi culeys weyn bay ku keenaysaa adeega dekadaha marka xilliyadaas oo kale oo gurmad loo baahan yahay oo kale waa qof mar walba u gurmada Itoobiya marka marxuumku saaxiibka shacabka Itoobiya ahaa saaxiibka dawladda Itoobiya ahaa xagga adeeg bixinta dekadahana saameyn weyn buu ku lahaa xagga in adeegu uu mar walba wanaagsanaado oo fiicnaado culeyska markuu jiro alaabo badan dekada ay timaado oo xagga Itoobiya loo gudbiyo marka loo baahdo kale si gudi ahaan yaanu wada shaqeynay marka marxuumku run ahaantii wuxuu ahaa qof oo ummadda shacabka Djibouti iyo ummadda shacabka Itoobiyana taariikh weyn ku leh adeeg bixintana wax badan ka taray marka taasna waa kartidiisa hogaamineed iyo guud ahaan aragtida iyo hogaaminta madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo in la kobciyo dhaqaalaha Djibouti adeeg bixinta dekadaha Djibouti oo regionka oo dhan gaar ahaan Itoobiya laf dhabar ku tahay in mar walba uu sarreyn u yeesho oo u fududaato dhaqaalaha Itoobiyana si buuxda loogu adeego marka runtii kulligeen buu naga wada dhintay marka waxaan u duceynaynaa marka waxaan leenahay Allah jannada ka waraabiyo Allah u naxariisto reerku ka tagayna waxaan leenahay samir iimaan waa masantiin